أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. waxaan rabay dhowr qofood ay soo waceen maadaama aan Facebook aan shalay maanta soo galay ay dhaheen arrimaha oo Puntland igala hadleen qaarkoodna igala hadleen maxaa ugu tanaasushay Soomaaliya iyo musharaxnimadaadii marka taasaan rabay inaan maanta ka hadlaan rabaa insha Allah next 20 minutes insha Allah or so su'aalihiin insha Allah bidinlaahi kariim waan ka jawaabi doonaa haddii Ilaahay rabo bismillah horta Soomaaliya dhibaatooyin badan ayaa hareereeyay international haddii ahaan lahayn iyo dhexdeena haddii ahaan lahayd marka dhibaatooyinkaas qof walba si uu arkay inuu kaalmo ka geystay oo consultant ka noqdo inuu soo sharxabo inuu wadankan maanta badbaadadiisa adiga markan gacantaada ay ku jirtaa asagoo qofkaas wax badan haminayo iyo qof occasional u galaayo dhahay wallahi malta millionaire meeshan ka noqo markan waa careerka ka waxay wax un adiga personal iyo family related iyo something like that horta alxamdulillah aniga waxaan ugu istaagay waxaan ogaay in qof iga lahayn jirin aqoon hadii la lahay Soomaalnimo hadii la lahay Islaamnimo hadii la lahay caloosheedina kolba aniga unba og waxa aan damacsanahay iyo teamka aan wada joogno oo ayagana igu markano igu taageeray dhahay adaga sanadkan nama talaysi taasa wax weyn ah waana uga hambalyeynaya kama cilmi badni kama aqli badni kama Soomaaliyiin kana ilaaha ugu dhawaahay ma dhahay dad badan oo fiicana jiro qofka Allah u dhow asagii ilaahigiisa baa yaqaan gaar ahaan Allah yaqaan marka laakiin way ugu xushmeeyeen waynu arkeen inaan ka soo bixi karno ma tali karana ayaga okay intaas marka laga soo baxo Soomaali wax ugu horeey dhibaatada ugu horeeyay waa amni la'aan oo isku socod ma jiro amni la'aantaas intee ka timi number 1 waxay ka timi magaciisu muxuu ahaa aqal xumo dhexdeena aqal xumo dadka markano aan u naxaynin ama hoggaan hore ha soo noqdo ama kuwa damacsan ay ahaadaan ayaa u sabab ah in markano amni darrada raali ay ku noqdaan maanta qof oo markano magaciisu muxuu ahaa baarlamaan ku jiro ama qof takada joogo oo mas'uul ah ayaa wax lagu leeyahay maanta baada laga qaadaa ama xataa villa Soomaaliya joogo oo waxaan aqal galaynin waa inuu al-shabaab baad uu ka qaado ama aad la shaqaysidaas contribution ku sameynaysa marka amni xumada waxa waaye markan waa dhibaato ciidan wuu jooga ciidan Mareykanka noo tababaray Turkiga noo tababaray oo tababaran oo Soomaaliya tababartay way jooga laakiin hoggaanka ku shaqeyn lahaa wili ma jiro waay maxaa loogu shaqeyn waay 50,000 oo Soomaaliya oo ciidan ahaa jiro oo lacag la siiyo billions la siiyo every year billion kaas la siinay maxaa lagu siinayaa hadaysan lagu shaqeyneynin saasaan haram cadaan dhisay intaan dhisay ma arkano kala doo it doesn't make sense xamar maanta safe miya magaalada madaxda Soomaaliya outside keeda safe miya dadka degan safe miya dadka ganacsatada la safe miya dadka dawladda u shaqeey safe miya maya burbura kasoo markano weyn ayaa ka soo gaaro waxaasna waxa keenay waxa waaye hoggaan la'aan waaye hoggaanka isku ma filnaba ilaah la u sahlay mahana wallahi inuu isku filnaan because waxa waa inaa soo diyaarsataa pilot ilaa intaas oo marxaladood ay Soomaaliya ku jirto which one kan dhag waa saxday kan okay waa saxday may ka masixin ehelkeeda u raadi dhaqaalaha waa si dhaqaal ku kariyeed garan kara si beerihi lagu soo noqon kara sida nabadda lagu heli kara sida al-shabaab loo adkaan kara sida annaga maslaxadeena ugu fiirsan sida dawlad goboleedyada looga tanasuli kara oo governor loo noqon kara sida madaxweyne Prime Minister markano ma anfacayo madaxweyne ku xigeen annaga hadda waxaan soo diyaar madaxweyne ku xigeen aan soo diyaarin already magaciisa xataa waa hayna everything dawlad dhisan oo soo diyaarsi garoodiyana hadhow hadii la dhaho Prime Minister hal raadi ma raadinayno already we had sida aniga la keenay ayaan haddana asagan u keenay dad Soomaali oo fiicanana keenay maxaa marka waqti maba naga qasaaraybo mideeda kale madaxweyne markuu qofka uu noqdo isla markii uu flight gareena meeshuu rabo aad no I am not going nowhere first aniga waxa iyal priority iyal koow nabadda seen ugu shaqeeyaa aniga waqtiga aan soo koray
xamara 8 o'clock maarka ama 7 ama 1 o'clock duhurkii waxaa wacaysaa qofka Ismaaciil joogaa wacaysaa waxaa leedahay caawash cashaan soo doona malay iyo baasti iyo diyaar bawrkan shidaal ku shubana waa bax neither one aan ka baqayn male ilaa ilaahay mooyee cid laga baqay ma jiro noloshaasaan soo gaan how we gonna go back sam kaasoo kaleeto si uu noqon karnaa taasaa marxaladaasaaba ii taal aniga why I'm going for maarkano Europe why I'm going for Kenya why I'm going for Ethiopia why I'm going for any other country why Imaaraat are you kidding me first horta first war Soomaaliya iyada dhaqaale isugu filan maskaxdii iyo aqligii kaliila in la miiray kaliila waa bis dadkii miiri lahayna inaa heshid waa annaga macal wasiiradii ahayna qof walba oo Soomaalina ku qanci lahay why aan u sameynay because marno Soomaaliya ina waqti qasar every single minute for 4 years kaas aan haysto oo haysano waxaan ugu talagalnay inuu san time naga qasaro okay amniga xaqiisa mid labaad one man one vote laga hadlaa one man one vote waxa ka horeeyo dastuurka ka horeeyo dastuurka 8 years 9 years waa hada sanadkan waxa way waxba lagu dirin waxba laga dhiman amendment waxa loo sameeyay madaxweyne maarkano waqtiga Xasan Sheekh hal amendment asaga sameystay madaxweyne Sharafeed oo dawlad maarkano baarlamaanka inuu yahay period farmaajo saas uu ku gudbay is there wixii kale ka muhiimsanay maanta oo justice-ka ay soo galayso ila maxkamad sare ma la asaasi kara adan dastuur lahayn dastuurka maxaa loo dhimay yaa hortaagan dastuurka international community ma hortaagna hoggaanka hortaagan halkaanaan jirin this is my responsibility ayaa ka dhiman Soomaaliya inay dhahdo nin dhahayo my responsibility and my country my people araf markano adiga arinta ka dhaxbax qof dhaho yaa wax ka qaaday ma sheeg kartaa you are sovereign wadankaaga xor u tahay xor wadan ahna way ma wadan la haysto oo la gumeysanayo ma aha dastuurkaas waa inuu sidii ay u tahay loo dhameystiro wax badan oo qaldana jiro oo hay'ado iyo markano yaa sameeyay dastuurkan meelsana waa noo sameeyay oo mas'uulka ahaa wax allaal wixii argagixisay everything waxaas ayaga asaan oo sameeyay asaa mas'uuliyadda la saartay Europe iyo Mareykan saarteen no we can cancel annaga our own annaga sameeysanayno bit by bit kii 1960 kan soo qaadan karnaa wixii kale oo update aan sameeynayna upgrade aan sameeynayna oo aan upgrade karin karnaa laakiin no one wax noo akhrin kara ma jiro hoggaankaas loo baahan yahay that's why I'm standing that's why my people ay iso maarkano magaciisa doorteen ay dhahan tatore adiga rabna inaan sanka ay soo sharaxdo we tried in so many people and amarkano oo musharaxiin inaan taageerno who qof walbaba inuu yeesho qof walbaba his own oo maarkano magaciisa muxuu ahaa oo dhibaato uu gaarsiiyay wadanka iyo maarkano mas'uuliyad uu ku gaarsiiyay subi inaan maarkano qofna eed ka galin ayaa waxaan dhahnay okay hawr sidaan yeelnaa adiga chairman noo ahayd adiga maarkano sameeyo arintaas okay and justice dastuurkii on dhisneen justice ma imaan karo supreme court ma imaan maxkamadda sare ma imaan karto waa hay'adda saddexaad waaye waa mid fulin ah mid dastuuri ah iyo mid maarkano justice-ka oo maarkano maxkamadda sare Mareykanku uu leeyahay markii Trump iyo maarkano iyo Biden maxkamadda sare waxay dhahdeen hey macalinka arintaas ka baxalay just go home relax 4 years soo qabatay Kenya hadirtaan maxkamaday aadeen way annaga maxkamadeena u shaqeeyay bika sharci dastuur ahaa ayaanba noo degsanaynba yaa diidan annaga dhaxdeena diidan iyo waxa la leeyahay maarkano madaxweyne oo wadankan dhaho no wax international community-ga no dastuurka hadda waa first day ugu horeysay waag markuu ii bari waa la bilaabaa teeda kale waxaan ka soo horjeedaa wax la dhahay guddi dastuurka ayaga guddi iska leh qaybta dastuurka u xisaabsan waa inay dastuurkaas u fariistaan dhaqaalahooda ma loo weydiinayo United Nations iyo UNDP iyo Mareykan iyo USA iyo cid loo weydiinaa ma jiro annaga iska leh wax kasta cid kale ma hoos fariisanayna no they have to inay sameeyaan oo walba salary ma qaadanayno that's their job way
and their responsibility why, and they have to bring markaas kada markay soo dhimo mid kasta ay dhameeyaan waa inay nala shargareeyaan this yes markii dambana aan referendum loo qaado waa markaas oo ansaxa wax kasta waan ugu la ablaagareey yes maanta annaga iska hortaagan dowlad goboleed iyo dowladda wax aan kala leenahay ma jiro intaas waxaan uga baxay dastuurkii iyo justicekii iyo amnigii aan ugu baxay waxaan kaloo ma arkano magaciis muxuu ahaa ku talagalnay waddankeena waxbarashadiisa Soomaaliya wuxuu ahaa top of Africa uu ahaa top of Arab uu ahaa top of all over the world ayuu ahaa and today meesha uu joogo qof walba iskuul uu furtay every single person iskuul uu furtay no curriculum oo annaga naga dhaxay oo Soomaaliya ka dhaxay dowladda federaalka ee iska leedahay ma jiro we will have it that one as soon as possible dadka ehelku ahna waa haynaa oo waxbarashada ku soo takhasusay oo all of the world kaga soo shaqeey oo way arag ah already we prepare qof walba shaqadiisa loo diray caafimaadka sidaas oo kale qof walba isbitaal iska furtay ummadda wax u danqanay male aniga nursing soo maray nursing dadka waxa loogu shaqeyn jiray maxaa iiga galay wada daawo qaliina loo sameeyna zero wax laga qaadi jiray ma jiran anina salarigeyga dowladda ka faala qaadi jirtay oo isiin jirtay maxaa idinka siya laabki markano free oo ahaa x-ray-ga free oo ahaa shaybaarka free waa oo ummadaas markano magaciis muxuu ahaa public health markano magaciis in ummadaas maanta maxaa wax kasta la keenaa every single thing ayaa la keenaa maanta in our country waddankeena open uu yahay heer waxaa la gaaray wadamada qaarkood ay dhahaan export only way Kenya ma la geyn karaa Ethiopia nagu dhaga ma la geyn karaa Djibouti nagu dhaga ma la geyn karaa Soomaali kaliya la keeni karaa export only warshadaha loo sameeyay in Soomaaliya la keeno waxaas wixii xadidi lahaay already waa diyaarin anaga dhaqaatiirteedaan diyaarin scientific-keedaan diyaarin lab-keedaan diyaarin dhaqaalihii lagu heli lahaa waxaas oo dhan waa diyaarsan yihiin waayo haddaad is soo diyaarinin waaga lay kugu barya marka lagu waxa intaa ka bilaabaa meel alla waay no we are educated Somali Academy Network ayaan ma arkano maanta alxamdulillah rabbil caalamiin aan sheeganaynaa haddaanan ma arkano waxba ku qaban karin maxaa ka sheeganaysaa marka you are nothing shaqo abuur waxaan arki jiray Soomaaliya wasaaradda shaqada iyo isboortiga way isla ahaan jireen labada ugu fiican oo wasaaradda ayaan ahaan jirtay because shaqadaas waxaa ka soo gali jiray thousands and thousands millions Soomaali ayaa shaqo ka soo galaysa ciidanka ku jiro ciidanka waxay leeyihiin ma arkano magaciisma hay'ad gooni booliiska hay'ad gooni nabad sugidda hay'ad gooni asluubta hay'ad gooni whatever it is laakiin shaqaalahan waa shaqaalaha oo shacabka ahay waa oo caafimaad ka soo baxay waxbarasho nooc walba ka soo baxay nooc walba dibadda ka imaada ama gudaha waa inay lahaadaan meel CV-gooda ay geystaan maalinka dambe loo yeero lahaa Dr. Maxamed Afkuul Ibrahim just come arkano magaciis muxuu ahaa meeshaas tag interview waa leedahay shaqadaasaan ku haynaa meel laga wici karo meel aan qabiil ahaan looga waceynin meel aan discrimination looga waceynin meel in adeertay ayna ka jirin waa inaan u sameynaa taas warse number 1 for us allana taas uu nagu difaaca wallahi waxaan isugu nimaanay aan isu soo sharaxnay inaan legacy ever siyaad bar waqtigiisa lama gaaray waqti wuxuu helay everybody oo club gareeyay oo sacbinayo helay annaga ma haysana like we try the best in aan waddankaas nagala xuso Africa nagala xuso waddan islaam nagala xuso insha Allah biidinlaahi kariim sportiga soo haray maalin weeyta markii wiilashii under 17 ay koob ka qaadeen oo Soomaaliya oo dhan wada oo meel kasta laga ooy intaasaan ku simannahay استاد مقدسي هو stadium ugu labaad ugu weynaa way hadda stadium kala soo baxeen ma arkano special west coast halkaas la buuxin jiray konton kuna loogu talagalay Soomaaliya maadaama ay yarna 80 biraha la kori jiray tigidhada la gooy subaxin ciyaartooyga ciyaaray
oo shalta inuu soo qaday xataa ma arkin oo alla yaa nafta ay tahay ayaa subaxii dambe quraac ilmihiisa ma ahaay asagaa fuunda noqonayo ama macallin iskuul noqonayo ama ma arkin oo magaciisu muxuu harqaan tolayo ama wareebi ereys waxaas cadaalad dar waaye cadaalad xumo waaye burbur waaye istaadi muqdisho oo buuxsantay in ciyaartooy uu salarigiisa waayo weli caadi salary fiican uu waayo waa impossible waaye asagaa soo saartay beer uu asaga abuurtay waaye why he didn't get or they didn't get the priority maxay u heli waayeen because of the leadership waaye leadership hadduu salary qaadanayo salary u qoran hadduu qaadanayo yes everybody else will maarkan waa ku daysanayaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wanaagii uu sameeyey iyo xafidaadii uu sameeyey iyo diintii alla maarkan uu ka soo miingowri oo keenay ayuu cadaaladii uu sameeyey darteed ayaa loo aaminay al dhahay yes you are the nabi maxaa loo aaminay asaga ammaana ahay asaga qof shakhsi fiican ahay asaga naxariis badan laga arkay asaga laga arkay ma arkano justice alla wadadiisa inuu ku taagan yahay marka la arkay waxa la leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ku jecelnahay nabiyaashi nabi muuse wuxuu yiri ilaahu rabbi yarham walaalkii ilaahu nabi iga dhig fiiri waayo walaalkiis qof human being waa caadi ee waay laakiin nabi markuu yahay ilaahay saliimo ka dhigay wixii qalad yar oo ka imaadana isla markii ilaahay ka saxaabo waa loo digaaba qofan qalad galeen ma jiro nabi salaamaan muxuu yiri 72 wiil sideedoo kala taan raba hal cunugo cunriyaana hal wiilo cunriyaana loogu bedelo insha Allah ma raacsin qofan qaldamayna ma jiro nabiyan qaldamayna ma jiro ilaahay ma qaldana ee casiiska marka hoggaanka waa number 1 waaye hoggaan wallahi alla ka xishoodo ummadiisa ka xishoodo shacabkiisa ka xishoodo waxa uu sheegay dadkana ka rumeeya that's what we looking for group waxa loo baahan yahay garbahaada loo baahan yahay group garbahaada loo baahan yahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabi muuse hadda soo qaaday garabkiisii oo ahaa walaalkiisii oo ahaa his own brother nabi ibraahim yaa ahaa wiilkiisa nabi suleymaan maxaa dhacay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sharaf wax qof bini aadam la sharfay ilaahay meesha ugu sarreysay gaarsiiyey ayaa abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali 10 mubashiriin taabiciinta khulafaa raashidiinta ayaa garbihiisa buuxiyeen iyo gadaashiisa ma ka hormari jirin waa la tirin jiray aayado ilaahay ku soo dejin jiro shuura la dhihi jiray la shuuray dadkii waxaana weydiinaysid ma arkano wax adi ka imaado mise wax alla ka imaado waay oo aayad alla ma taabanayna dhihi jiray fiir xushmaday alla xushmanaya marka horeba koow ayagoo ognaw maxamed inuusan qaldamayn ayaa haddana su'aalahaas weydiin jireen that's what we looking for those kind of people we have it in Somalia waa haysana qabiil kasta laga hela Somalia waa nasab waay laakiin yaa horboodaya 4 daniistayaal ah millions ay dhaceen ayaan haddana ku taageersanay waxaas waxa keenay nooc qof dhahala la'ya dhaqaalaha markaan dhahno bad iyo xoolo iyo beer intaas waxaa soo dhaafay hay-adaha soo dhaafay intaas waa ku noqon doonaa hay-adaha soo dhaafay hay-adan iyada yaa u shaqaysaa haddii waxbarasho wadda wasaaradda waxbarashada in la xiriirto waay believe me aan ku dhahay 100% and we agree my American our teammate keena 100% haddii caafimaad wadda waa ina caafimaadka la xiriirtaa haddii dhismo wadda oo jideedu waa ina la xiriirtaa howlaha guud haddii wax walba ee wadda waa inay hay-adda qusaysa ay la xiriirtaa period no one can gobol inuu iska tago wuxuu rabo iska suubiyo baashaalo diyaarad khaas ay qaataan lacagteena lagu baashaalo hadhowna annaga deyntaas nagu lahaado impossible ma dhacayso weli ma arkin musharax sidaas waxaa soo diyaarsaday waa yaryah ma jiro ma dhahay laakiin waa soo diyaarsan annaga we are ready to lift inaan maarkano kor u soo qaadno maanta Soomaaliya beerihii aan gaarnay iyo xoolihii iyo baddi haddaana nabadgelyadu jirin hore haddaana dastuur jirin haddaana justice jirin
haddaan muwaafiq jirin dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ayna muwaafiq jirin sideen ku guulaysanaynaa beeraheena u falan karnaa 90% maanta dibaddaan ka keensanaa wax doolarkeena adag oo dhan kulli wixii adag oo dhan waxaan ku bixinaa dibaddaan ku bixinaa Soomaaliya 40 sano ka hor dibadda meeqaan keensan jirnay 10% ma dhameen meesha vice versa ay tahay 90% maanta ka keensanayno annaga dhoofin jirnay laba warshadood oo ma arkano magaciis maxaa oo qasab ah oo ma arkano magaciis Mareere iyo Jowhar annaga dhoofin jirnay intaas oo ma arkano warshadoodaan lahayn warshada hargaha warshada Ethiop warshada baastada warshada neemidaan ku dhahay Today we have it now. We will have it inshallah bidillah karim. Boqol toban ma laga tagay. Yes. Ma laga tagay maanta. Yes. Marka dhaqaalaha xadiisa waxaa xayiraaya nabadii number 1 oo beerihii dhanay ku fadhiyaan isaga مشرح كستو حوليه من شباب لبا سنان كسارا هل سنان كسارا كنتم كن عيدنو هيا لباتن اي دور كن اي شن كن لاتي لح كن او امزن الله والله نيسان مالين فريسانين والله العظيم انقره قفل بمسؤوليه اوليه وانه قاد لك مي مسؤوليه ان له وانه قفل بمسؤوليه اوقاته ند انيغا انان ما اركو مغعيس مخوها ان اسك جيفتو نو انيغا كليا شقينا نو قفل بمسؤوليته له عيدا ما هيسنا والله عيدا توبرا او مال عدي لقايا هيسنا لكن ما هيسنا الليدر كشقايا او هل كان له يس انا دير كرو nobody can stop me دي كرو مجرو من سومرن هذا كتم هذا كهرنا مسومر قف كستا وحوا ادونك او ريبانا وعلي مايو والله ماشان كاريدينا هذيك هو ايو هذا ما اسارت ماشان إلهي يا قدري ودنكي كان جوجا سفرنت معها كده هل ار ماي بيزنس هذا ودن كان انا حكمه انا قراع سينا انا قضى سينا انا عشا سينا انا نبت قلي وكاناي انا عافمات سينا انا وحبرش سينا انا ان جيس لو سوق قوش انا سينا انا wax qabsadaan ana siina ina multi millionaire nolosha ugu fiican Afrika inay ku noolada ana gaarsiinay not you 30 years aan hortaagneed kay in la fariistaa lacagtii oo dhan waxa leeyahay ha lacagtaas aan Soomaali siin wariyo taa kana baad intaas marka uu baxay international community way qayb badan yihiin markaan u noqdo one man one vote waa laga dhawaajiyaa one man one vote is very easy and it's not very easy either dadku waxay dhahaan dib u heshiisaan no qof la istigaarsan ma jiro qof walba gaaja haysa gaajada waa inaan meel ka saarnaa qof walba nabadgelyo la'aan haysa nabadgelyo la'aanta meeshina saarna waa qof walba cadaalad u baahan cadaaladiisa inaan siino waa Is there anything else qofkaas u baahan yahay absolutely not wax dib u heshiisiin la dhaw wax is haysta ma jiro wax is haysta ma jiro I disagree aniga taas justice iska siin kartaa oo cadaalad shaqada ma ugu qaban kartaa oo waxbarashada cadaalad ma ugu qaban kartaa scholarship hadii la helo cadaalad ma ugu diri kartaa caafimaad cadaalad ma siin kartaa oo gobol kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kasta ma geyn kartaa dhaqaatiir oo dhiigi cab ahaay jiro ma ka close gareyn kartaa general hospitals ma ku bedeli kartaa 1960 ilaa 69 waxa soo baxday ugu yaraan ilaa 100 Talyaaniga Jarmalka Ruushka iyo Talyaaniga ugu badnaayeen general hospital ka shaqeynayeen Martini ka shaqeynayeen Lasareti ka shaqeynayeen banaadir markaas ma u furneenba number 1 clean maxaa idinka siyaad barmaanta cilmiga leenahay ma lahayn laakiin nin shakhsi leh uu ahaa oo qalbi leh oo maskax leh ayuu ahaa annagoo maanta 21st century joogno wax ka fiican ma sii samayn karnaa yes waa samayn karnaa boqolkiiba waxaan hubaa inaan samayn karna ka fiican حتى the right person aad doorataan one man one vote waxaa loo baahan yahay idea loo baahan yahay
qof walba inuu ma arkano magaciisa muxuu ahaa national ID inuu haysto waay Soomaali ID inuu haysto waay wadankeena waxaa iska soo galay thousands and thousands and thousands oo Ethiopiana soo galeen oo Kenyatia soo galeen thousands and thousands sidee lagu dhihi karaa wadanka waa ku nooshahay waa mahadsantahay in the future aniga balankeena waxaa waayba inaan celino waayba annaga maba qaadi karnaba wallahi inaan qaadi karin wax refugee la dhahay annaga I don't care where you come from go back to your home we cannot sideen ku xakameyn karnaa waa national ID oo Soomaali leedahay waa in la hela qof kasta oo shakhsi Soomaali waa inuu helaa social security waa inuu helaa social insurance wax la dhahay si qofkaas loo badbaadiyo markuu soo karo uu dhashana maalintuu dhashayna ilaa intuu ma arkana 18 ka gaarayo ilaa jaamacadiisana in dawladda aan nahay aan annaga ka fiil qaadno iyo kuwa naga dambeeya hadii Ilaahay raali ka dhigo siyaad barhideed kidney karen إلا جامعة مدشين حتى العجا نقول درجة بقد مني نيرسنا العجا اللي يسينجر بالكلبة فارس يركض ولا يقصيات برمانا يقصته does he know me إنا في ملكي سهل does he know me كل ما لو ذكر اسم الشخص على قص كل يا يا وايد كهوسة والله accountability يا جراي إنه سقف واحد قد بكرن دولة دي إنه كجوري كرن أما دولة ده عندك كوضع لسنة يوردن أو سوماليا يوردن أي وضع لسنة والله العظيم إنه سقف إنه واحد قد بكرن period that's why محكمة السريع وإني أني نفسر كي سريسا it's not market أو فرد كدير معها was something serious أو تلاقي السومالي إنه كهو كامنه أو والله يا أيديكاس حتى وحكوا أنفعيا على الشباب lacagaha loo soo diray wuxuu ku anfacayaa dadka lacagaha loo soo diray adduunka oo dhan lagu soo diray oo Dahabshiil iyo Hormuud Amal Bank iyo any other bank oo maanta ma arkano taas war waxa inaga caawinaysa yaa siiseen maanta $100 yaa siisay who is he does he have an address does she have an address lacagtan yaa u diraan naftirkooda accountability xafiis dhinac u qoran الله سمينا waxaan kaloo annaga aan ka soo baaran degnay Soomaaliya we are muslim boqolkiiba boqol in saas lisku yahay 9 firqadood 10 firqadood we not accept that I don't care what you believe you are Somalian you are Muslim you are Sunni you are Shafi'i period inta soo ku ekaan karna I don't care inside ka waxa iyo wadamada ku soo ma arkano magaciisa lacag ku soo siiyay waxa aday ku jirtaa bax aarif kan tirta مساجدة هل وقت يا لقى دماء هل وقت يا لتكنا هل وقت يا ما أركلهم مقعيش معوها فوضى ما جرته وإنها مدينة دينتينا هل حبوه لبا معها محل مدينة وإن علماء ذا المدينة قف البقى ما أنت إمام هنا we have to in an investigation كسوبنا who is who ما هنا عدنا وجدناها وعد أن وضعنا معها what do you have done last 20 years إماما مشان كه what do you contribute for the government الشباب ما رجعت حق جل ما تاه شيعة ما تاه who are you we make sure إن الفهم كرهنا that's why ما ركنا وزارة أوقافته يدين ما ركنا عنصر صارنا intaas markaan uga baxo dawladdii waxaa jira waddankeena dad badan oo masaakiin ah oo dhimanayo maxay u dhimanayaan waddankeena waxaa lagu ablaagarey wax la dhahay dollar waddankeena waa pur boqolkiiba 75 waxba ma haystaan maalintii $1 ma helaan sideen markaan dadkaas ugu difaacnaa waxaa dhacday baydhabo kaleeto 2017 كدماتكيس يانتغ 300,000 oo qofood sanadkaas waa sanadkii barwaaqada ay heleen ma arkino koonfur galbeed siiba koonfur oo dhan ay heleen waa barwaaqo xoolihi beerihi dhulki green bio 300,000 ayaa waajid iyo qansax dheer iyo diinsoor iyo xudur iyo tiyoglo iyo everywhere laga soo waday magaalada banaankeeda la keenay أنا قبل كيجا وعدت كيجا وأنا I was there ده وحكوا عنايا
kaas camal digli marifle makugu aha koonfur galbeedna makugu aha waxaasoo dhan waa eliminate garaynaynaa war meesha ay joogaan qasax dheere iyo waajid iyo tiyoglow iyo meesha ay joogeen iyo diinsoor maa ku siisid $70 maa ku siisid ilmahoodana iskuul ugu samaysid ilmahooda caafimaad ugu samaysid ilmahooda shaqo u samaysid waay usoo raraysaa ummaddan ayagaa mnaq heleene gurigiisa maa ku siisid ama gurigeeda ku siisid gabadhaas masaakiinta markaasaa kaneecada arafta 15 kilomitr yaa joogo maarkano baydhabo banaankeeda al-shabaab lee joogto oo ku cunayso markaasaa $70 haddana $25 aan qof walba laga goosanaa bil walba ma kuu naxayaan dadkaas dadkaan naxayno dhan annagaa shaqo u yeelayno annagaa ka meelaynayno annagaa ka hor wareejinayno dib dambena uguma soo noqonayo wallaahi alcadiim qof maanta buur Somali maarkano advantage ka qaadana wallahi unacceptable and we are accountability qof walba idea loo sameyn doonaa waxa rabtid oo dhibaato ay ku soo gaarta telefoon la sameeyna kutub meeshas aniga oo ah Maxamed Afkuul Ibrahim waxaan ka soo hadlayaa buuran ka soo hadlayaa waxa jira dhibaatadaas lagu qabtay period isla markii waa lagaaga soo jawaaba waa in adigana arintaas aad u yeeshaa maarkano cadeen ina u haysid waa nad ina iska soo wacdid ma عدينتا سيدو قفك اسكو والله جيلو قلا والله العظيم جيلو قلا وحو سمينو وسو علينا وريها كلا تنبين هدي سنجرن سيدين كو هرمرينا where we can be where we will end نحن كو تنبين دونا ان كو دما ماركن مغعيس ما بابا قرن يقشنا كو دمين دونا maya hoggaan waxa loo baahan yahay accountability leh oo asagana la xisaabtami karo asagana wax la xisaabtami karo la rabaa dawladdiisa wax la xisaabtami kartaa la rabaa dastuurka kaleeto waa iska fadhiyaan no they have to work maya lacaga loo baahan yahay who care lacagan ku siiya aniga mishaara qaadataa ilaahay inaad ka baqdid dastuurkan wixii lagu diray amendmentiga wixii lagu diray wixii lagu kordhinay wixii laga dhimay iyo wixii markastooda loo daana it's your responsibility that's why you get salary u qaadata that's why salary u qaata inaan Soomaali aniga xukumo dadka masaakiinta markaa ku soo noqdo waxaan u haynaa program ah welfare before inteena aanan ma arkano nabadgelyadooda sugin beerahooda dib ugu noqoneen xoolahooda dib ugu noqoneen annaga aan dhaqaale gelinin sida ma arkano badda kaleeto we are a lot of information hayna billions and billions nooga baaqato ma arkano magaciis muxuu ahaa baddaas nooga baaqato xoolaha billions nooga baaqdo kaas xoolihii nool aan dirnaa anaga xaragiyaa haysata beerkiyaa haysata wixii dhan keliyaa haysata wax badan oo naafaca madaxiyaa haysata waxaasoo dhan kala diri kartaa meesha around $500,000 naga soo gasha amount we talking about over $2 billion programkeeda haynaa dadkii waxaas dhaqaalaha kusqusay haynaa waxaan isu keenay fiil kastaba 25 people oo aan lacag naga rabin wallahi alcadiim lacag naga ma raban we talk last 8 years 9 years aan isla hadlayna wallahi waa brilliant idea dadka hay knowledge iyo experience dadka hay ayaa diyaar waxay u yihiin Soomaaliya inay u shaqeeyaan without salary inay u shaqeeyaan markaas mid tuug ah boorso iska wata empty oo lacagta la ku guray heshiis soo saxiixa ma arkano asagoo wasiir markaas 2 million 3 million what are you talking about no it's not gonna work waxaana musuqmaasuqa that's the best ugu dambeynti musuqmaasuqa waxaana every wasiir every xildhibaan every mas'uul every include myself dad nala soconaya hayna jeeg aniga marka la soo siiyo 30 milyan 100 milyan 1 milyan wixii la soo siiyo isla markaan ka gudoomo thank you very much and ayagan dhiiba soo wixii ka dambeysay aan soo degno waa inay ku dhacdaa bankiga dhexe ee Soomaaliya inay ku dhacdo we have to have a saving do we have today zero way saving madaxweyne kasta markuu baxay zero loogu imaana markaas haddana difaacina wariyaha aqliga aawe adigan ku walwalnay aniga wallahi alcadiim qof dambe oo xamar jooga inuusan gaajo oo la jiifinayn nabadgelyo la'aan aysan noqonin
waxa aan sheegay run haddii tahay aniga iyo tiimkeena you think ani maa kuu ron mis qof qabiil iyo laf aa ku keentaya kuu ron that's your choice maanta cid ma dooranayso waa ku ogaa haddaa cid dooran lahayd 100% waa ay dooran lahayd because a lot of people know me one single penny anaa iska bilaabaya oon salarigayga ahayn xataa villa Soomaaliya ma ku cunaya أنا accommodation واحد كستبل لقى بحنا time كان هذا مكجرنا accommodation ده بربورايو أنا كسل الكيك ويقول فلانيا أنا كي فم الكيك ويقول فلانيا what are you talking about I don't read no penny لو أنا بشان لايف أفر لايف فيها فيلا سومال are you kidding me أنا مكوبي كريه just lunch كاك بح أما قاعد سوا أنا مقولك سوا سوانق شغلات سوانق what are you talking about we have to squeeze wax naga baxayo dhan waa inaan soo yareynaa si dadka masaakiinta ah waxbarasho uga helno caafimaad uga helno food uga helno nasasho uga helno nabadgelyo uga helno horumar uga helno technology aan gaarsiino waa inaan squeeze gareynaa dhaqaalaha baxo for nothing ku baxo hay'ad kastana waa inay 100% iska soo xaadirisaa wasaaradda ay qaabilsan tahay والله هيئات اسكبيعي كرتو قبل تاي كرتو وحرب سمن كرتو والله العظيم ما دعيس واي اذان كو دنينو هنا نت انا انا ديكتاتور ناهي وحنا وحق قونتو اولاده هاي 100% وزارته سا هوست ماذا وزاره هذيك البروبليم كان هايستا فيدرال انقاذنا ادونك فيدرال لقات برلماني ليهين موزيري ليهين مقال كستا وحوليه غوفرنر مير وليه iyo xulay council بوليس قوني وليه هاي yes all of this لكن ملتير ما يالن كرا العق ما يالن كرا فاينل مسمين كرا دقال إنه قليه قبل كلام أركلهم يمسو قلي كرتي موديه كرا برايم مينستر يمسو قلي كرتي موديه كرا مدحوينه مي إيمان كرتي موديه كرا وريا يا أنسكو قلتمين أنكو ده يا أنسكو قلتمين لكن نسيب كينو حون نقضي حس الشيخ إن كان نسيب بدن الصومال إلهي ما أبورن جانس إلهي سي yesterday whatever mistake he made أيو الله بحير جانس أن كسي مكفاءة دي ذكرتها still شامبلود إيو بلاس وجوغا ولي ما هاينو كوشاس ما هاينو وكفاءة دي سنة شالا سوحنا وسنة وجو والله هنا اللي قال هلي كرم والله قولن ريلاكس وحا كجرتا خانت قلد أها كجرتا خانت أسقلت كبح the right people still we don't see it markano your shoulders garbahaada uguma jeedno dadka qiimo galka ahaa dadka Soomaaliya dadka wada ka xishoonayeen culamaa u diin uma jeedno markano dadka educated-ka ah dadka Soomaaliya u naxay dadka aan lacag ka rabin dadka tuugada aan ahayn uma jeedno garbahaada uguma jeedno familaan qaadana waxa problem kale ah in reer hebel والله نسجل وزارة الشقة شغالها والله العظيم حلقف أو ما أنت عن عدالة وحكوهلن إنه سنقول شقة كهلين إلهي إذن كيس حتى وهينا وزيرك يا هينا وزيرك سبورتك يا هينا مدحوينك وحكينا أنك أنرالك أنا نو مور ما أركنه مقعيس ما برايم مينستر أو اسكت أجن أو سوحينا نو مدحوينك وحكينا بيريد فولينت يس دولة قبلات كسي وزيرك كل خان كران وحلو ليه وزيرك ما ركنوا مقعيس معها أوقافته بلو وزيرك أوقافته بلو وتتك مال وريرنا حتى كورا نين هاد لاي أو وزيرك حقين أهاي الله نحرس تقول انتين كاس وحجري دولة فدرال كان كسعودي يوري جيبوتي أنت يوري مركز عن هوتيل كان الله هذا مركز عن ده يوري وزيرك وحا أهاي هودي إيو ما ركنوا مقعيس معها دولستا ها we already have your room available excuse me this is my first time I call you guys ومركو هورس أن صوّع مركز الله ما واقوه هنا روم كذا وافهم يجري يا واي وقفك أهيسين مقعيس هبل وافهم يجري اسكو قبيل واحدة سومال لانو كسعدا وحسوا حب واي إن برلمان قالها تدو أمد عشي كريسدو ولا شيء واشد oo dhaqaale meel cod loo ku bax wasiir kale wariita ka rabad wasiir hal xab wasiir wadan kasta uu leeyahay one minister uu leeyahay waxa soo ka wada shaqeyn doona insha Allah biidin Allah kareem dawlad goboleed ma aha inaan nacbanahay ma aha no
laakiin dowlad goboleed waxaan rabnaa oo legitimate ahaan rabnaa oo sax ah oo ilaahay ka baqaaya oo ummadda u heelinaya rabnaa. laakiin wasiiraan leeyahay, waxaan leeyahay madaxweyne ku-xigeenaan leeyahay, madaxweyneha ahay, governoraa tahay, madaxweyne federaalka bisaa yeelan karo. war dad islaamana ah xishoona. intaas waxaan u baxayaa dowlad goboleedyada inaan kusii fogaado marba, laakiin insha allah brograam badan aan u haynaa oo dastuurkana markuu hore lagu caddayn doono insha allah. waxa ugu horeeyo assalaamu calaykum markiiba lay doortoba oo nala doortoba ilaahay idinkiis waxa ugu horeeya aan tallaabo qaadeyno ilan baarlamaanka horteenaaba la dhisay. amar waxay ku qabaan inay fadhiistaan dastuurka dib loogu noqdo bit by bit, one by one. waxa qaldan oo dhan laga saaro, waxna kala dheerayna dhan laga saaro, waxa qof individual ama qabiil individual oo u danayna in laga saaro. maxaa imaanaya inaan isku doon saaranahay kulligeena, include myself. doonta qofkii hoos kasoo duleeyay kulligeena nin la qeysaa, not only maxamed kulma la qeysa. revenue-ga authority iyo hantidoorka Soomaaliya waa hay-ad madax bannaan waay. intaas keliya madax bannaanaynayso maxkamadda sare, dastuurkii federaalki oo dowladdii systemkii, wasiiradii iyo revenue-ga oo madax bannaanaa. laakiin inta kale waxaa la sameeyey oo magaciisa maxaa guddiyaa la sameeyey. guddi who imise qofkoodaa dhimatay guddi loo soo saaray, wax may qabteen ma aragteen. wasaarad kasta iyadaa iskale, wixii dhaco iyadaa iskale. wasiire 85 wasiir miyaa ma aqaan, mid kastana averagekooda xaggaas 70 plus wasiir waay. 300 400 oo wasiir intee la geynaa ii sheegi kartiin? can we afford it? nin loser ama gabar magaciisa aan gabar waxba kama sheego, xaasha lillaah. nin loser inuu double agent ku noqdo hadduu inta ka waayo intuu wuxuu leeyahay wasiiran ka ah. no, council ka noqo, mayor ka noqo, booliiskii ninka xukumaya ka noqo, ninka magaciisa xabsiga ka noqo, waxaasoo dhan noqo. laakiin you can be wareer waay. revenue-ga waxaa waaye waa number 1 waay. waa waxaa canshuurta waddanka soo gado. canshuurtaas yaa ilaalinaya? yaa ilaalinaya canshuurtaas? waa inay ka madax bannaan tahay dowladda. lacagtaas waa inay madaxweynaha, include myself, I don't have authority and access. $10 meeshaas ha laga siiya ama qabiilkayga ha laga siiya ama aniga ha la siiya. never ma dhacayso. wallahi waxyaabaha aan guusha ku gaari karno, horumar ku gaari karno, caafimaad iyo waxbarasho iyo shaqo free aan ku gaari karno oo qof walba shaqadiisa uu heli karo, wallahi waxaa waaye lacagtaas oo maanta masaakiinta laga soo qaaday ama dekada naga soo gashay ama hawada naga soo gashay ama meel kasta naga soo gashay, waa inaan keep garaynaa. dekada waxa ka soo galaya maraakiibtaas kaliya haddaan xakameyno imisaa naga soo galayso, billions naga soo galaya. yaa xayirayo? annaga dhexdeena xayirayno maalilahi kan. wallahi inaysan dhaceynin. dowladda dhexe has authority in wax allaale wixii Soomaaliya shacabkeeda iyo dhulkeeda iyo diinteeda u dan ah waa inay ku dadaashaa 100%. cid ka hor imaan kartana ma jiro. we don't mean annaga inaan nahay dictator, no. like we are responsible. federalka responsible. inkastoo federalka aan kasoo horjeedo oo Soomaaliya oo dhan hal xab u yahay, laakiin gobol kasta governorkiisa iyo mayorkiisa iyo magaciisa asagaa soo dooranaya. booliiska waa booliis waxaa waaye federal waay, laakiin aduu kuu joogaa. salariga dowladdaa bixinayso. maxaa laisku qabsanaaba? that's the best way. laakiin haddii la dhaho qof walbaba meeshiisuu joogaa, halayla gooy halan baxay, qof wax qaban kara ma jiro. laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa aan qof walbaba aan ku convince gareyno inaan anagoo mid ah keliya leh inaan meel gaari karno insha allah biidnillahi kariim. waxaan rajeynayaa intaas ayaan kusoo koobayaa. waxaa kaloo jiro canuqabateen oo xagga dhaqaalahana saara bankiga dhexe ah. bankiga dhexe doo uu kaa saaran yahay oo naga saaray wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa naga saartay. FGC ayaa noo doodo ilaa hadda alxamdulilah, oo ka kooban World Bank
iyo IMF iyo kuwa lamid ah waxayna dhahaan wax impossible waayo Soomaaliya heshiiskan aad la gelaysaan ma jiro sida some oil oo kaleeto some oil xasan sheekh saxiix xataa baarlamaan inaan leenahay ma ogaasa laftirkiisa wariitaa kan waa see u saxiixi kartaa who are you is that something markano jeebkaaga soo bixinaysa oo jeebkaaga gashanaysid miya no wadan dhanaa iskale oo baarlamaani ah is no way access ay ku noqon karta xasan sheekh wuxuu saxiixay berberow saxiixay diilow la galay markano magaciisman Somaliland oo la galay berbera asaas saxiixay ilaan Somaliland authority male wili dowlad ma aha in markano magaciis maxay ay dowlad kale wax u saxiixdo xasan sheekh Allah okay no saxiix Allah waxa saxiixay berito بون هذا حد أنت كويرن تون تاوا وفشل ميسا نينكي هذا البراء ما مدحوين المرة بعد نقطة خامن قدنا وتجي محنا وكيل مي شيء كرتا مو نو شيء سيد نينكي هراكلات محمد عبد الله فرماجو اسكا عاموس بل أديك أنا بسكا عاموس إسا محنا وكنت أنا أنت سو ودنا تكتي أو قاركود اسكا قد بنقطة محنا وكنت كينيا maxaa ku aadiyay ayadoo hal bil ay ka dhimantahay wax la jiro ina aad maxaa keen madaxweyne ninkaas madaxweynahaas oo u dhamaatay he will never come back according to their markano magaciisma dastuurkooda see ku dhici kartaa inaad markano aad tagtido uhuru aad u tagtido aad hireer markano la soo yeelatido aad u fasaxdeed markano qaadka u soo fasaxdeed what are you talking about maxaa ku dhacay inaa Ethiopia aad dalbatido ay ku dhahamay hadda diyaar u kuunihin annaga waxa naga gooneed oo noo waxaysan aakhiri adduunyana ilaah baa iska leh sandanadana Allah bixiyo Ethiopia ma iga hor istaagi karto Kenya ma hor istaagi karto international community ma hor istaagi karto international community ma hor istaagi karto لكن I will never wadankayga inaan ka bixina isku dayaa oo madaxweynaha ama prime minister ka Ethiopia oo yimaado madaxweynaha Kenya oo yimaado kan Egypt oo yimaado kan Djibouti oo yimaado kan everywhere else markano Imaaraadka oo yimaado and excuse me what's the problem how between us maxaa naga dhaxay between us maxaa naga dhaxay anaga wax naga dhaxay ma jiro waxaa naga dhaxay relationship good inaan kulligeed wada sameysano Imaaraadka camal ma buu daahayba sawaade they have to come under us inay yimaadaan waa wadankan annaga iskale their country ayaga iskale they can do whatever they want they have to inay intaas ay rumeeyaan marka internationalka waxaan haynaa good idea haynaa I will never go anywhere else except wadamada waaweyn Europe iyo Mareykan aan wax ka rabno oo ku qasbanahay inaan u tagno su'aalo la soo weydiiyay oo haday aan akhrinay citizenship Mareykanka ma dhigaysaa dadkan waxa ka maqan waxyaabo badan ka maqan citizenship Mareykanka has nothing to do with my personality iyo Soomaalimadeeda iyo diinteeda iyo wadankayga aan hogaaminayo dual citizenship waa la ogol yahay laakiin personalka ku hogaaminayo ku xiran tahay advantage iyo disadvantage wuxuu wadankiisa u soo qaadi lahaa I will never accept this Somali wax u dhimay wiligay ma yeelay Mareykana wax u dhimay never inaan yeeleen ma badhici kartaba labadaas country wadankayga labadeeda wadan Europe yes waa wada fariisanayna waa xisaabtamayna how you can help me I need your help like help biga u baahanahay aniga aan sheegana this and this and this which one is fit for you waad iga caawin kartaa you get my point waxaas oo dhan ayaa noo diyaarsan alxamdulillah rabbil caalamiin waxa ugu dambeeya waxa waaye inaan maarkano magaciisma Soomaalida hore ay noqoto qabkeeda uu soo noqdo hoggaankeeda uu soo noqdo lahaanshaheeda uu soo noqdo xaqiraaddan baa lagu saaraya weli waa lagu saaraa haddii isboortigeena uu maanta noo soo saara financial oo fanaaniinta noo soo saara oo beeraheena iyo badda iyo xanaanada xoolaha noo soo saaraya shaqaalihii ay noo soo saarayaan oo ganacsatadeena noo soo ganacsatada
ganacsatada we know it, waxaan ognahay in dhibaato badan ay ku haysa revenue-geena, laakiin zero ay noqonaysaa insha allah. waddankeenana waxaan gaarsiinaynaa 60% plus inaan waddankeena aan isticmaalno, markaas insha allah 4 sano aan ka hadlaynaa. ka dambana wixii naga dambeeyo iyo haddaan kusoo noqono taas allahu aclam. marka saasaan annaga ugu talagalnay in exportigeena uu qayb ka noqdo financialkeena aan heli lahayn, instead 90% annaga nagala faa'iidaysan lahay doolarkeena banaanka uu bixi lahaa. wixii su-aalo welcome insha allah bidin, laakiin qofka kor soo karo waa ay weydiin kartaan. waxaan kaloo ka tagay hold on one second. Somaliland aan ka tagay. Somaliland waxaa waaye maanta alxamdulilah waddan Soomaaliya ka tirsan waaye, sida aniga aan rumaysanahay. wax kala go-ay ma jiro, wax kala go-ayna ma jiro, laakiin problemkana haysto waxaa waaye the right people moo loo diray, ilmo yaryaraa loo diray leeyahay idinka maanta kasoo hadla kasoo waxeysma. ayagana waxay soo dirayaan dad oo maarkan oo aan mas-uul iyo waxba u qaadi karin. horta koow waxa laga wada hadlayo waa in qof walba ajendaha waa inaan u dirnaa, ayagana ay noo soo diraan ajendahaas ee laga hadla waa inaan isdhaafsanaa. aqliga taasoo ku jiraa. markaan agree gareyno wixii aan ku agree gareyno, yes kan ma agree gareyno, okay kan ma agree gareyn karno, okay gadaal noogu dhig. kan ma agree gareyno, ha saddexdaas aan agree gareyno, let's talk about that. I know my right-kayga anaa mas-uulka noqonay. Soomaali markaan mas-uul aan mas-uuliyadeeda aan qaado oo maantaas aniga lay dhaariyo, ayagana anaa ka mas-uul ah. laakiin ma aha inaan cunuqabateen ku suubiyo, inaan la dagaalo, inaan ma arkano awood u sheegto, maya adduunka kale oo dhan ma aqoonsano. Soomaaliya la aqoonsan yahay, laakiin maxaan rabaa idin sabtaan haddana inaan advantage aan ma arkano magaciisa aan wada qaadano oon ka wada faa'iidaysano 4 sano sidii laisugu soo dhawaan lahaa period, include myself. haddii Somaliland ay soo istaagto diyaaraan nahay wallahi alcadiim, I am the first president. teamkaygan way ogyihiin who give it to the first 30-45 days oo dastuurkii la ansixinayo la waxaynayo ama 2 months kadib inaan farta ka saara qof kasta oo Somaliland. ana qabiil ma sheegin, ana Somaliland dadka degaan sheega waa dad sharaf ii leh, waa dad sharaf ku leh, waa dad qiimo leh, waa dad Soomaaliya hoggaankeeda iyo ma arkano magaciisa muxuu ahaa taariikhdeeda taariikh fiican ku leh, waa dad ma arkano magaciisa muxuu ahaa xadaarad leh 100%. Soomaaliya anaa madaxweyne ka 100% waa wareejina that day in ugu bilaabanaysaa. we willing inaan twice ay Somaliland ay haayaan ama 3 times hal mar ay haayaan. I'm sure dadkaas waa naga horumarsan yihiin. cadaalada ka jirta Somaliland, anaa hadda soo maray. Puntland horumaraa ka jiro, koonfur maxaa ka jiro maanta. taas war inaan u heelanaa rabnaa. al-shabaabaa baabi'inaya dadka muqdisho iyo gobolada kale iyo meelihii beerihii iyo webiyadii iyo baddii kulligooda al-shabaabaa isku darsaday. wallahi inaysan isku darsanayn iyo bilaahi tallahi. I will never sleep until I maarkanan dadkaas aan ka takhaluso. ciidan 50,000 iyo 30,000 oo ku dhawaad oo magaciisu amisan wallahi inaysan iyo quraacanin iyo qadeynaynin ayna baashaaleen xamarku baashaaleen. let them do their job, I will do my job. everybody responsible shaqadiisu qabsanaya. insha allah intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Soomaali waxaa idin leeyahay annaga waxaan ugu baaqanay markaa oon kusoo gabagabeynayaa raalli iga ahaada. maalintii baarlamaanka 1 sano iyo bar ayaa baarlamaan la sugay, November 2020 ilaa iyo 22 May la sugay. 1 sano iyo bar balaasaa la sugay. maxaa dhacday? 19 biloodaa la sugay. maalinta la asaas 10 maalmood gudahood madaxweyne ma arkano magaciis maxaa waa dooranayna. Are you out of your mind? Why you don't give us a chance? intaan hadda maanta iyo in ila mid 14 qofood aan ahayn annaga oo German aan lahayn oo maanta kala TTB haddana la kor waa iska warqabnay. dad well qualified ahayn kulligeena. qofkii Allahu calfo annagana waxaan ballan qaadnay inaan la shaqeynayno biduuna shuruud inaan la shaqeynayno. maxaa dhacay marka 10 maalmood aan loo qabtay. 10 maalmood xasan waa la yaqaana, Sheekh Shariifna waa la yaqaana, Xasan Alkhayr waa la yaqaana, Den waa la yaqaana, Farmaajo waa la yaqaana. shantoodan imaadeen yaa 6 ku ahaa. I remember Cabdiraxmaan Shukuri oo intaas qaylinay who is he?
maanta waxaa rajaynayseen anigii iyo tiimkeena oo isoo dhisnay oo intaas wax oon ka soo jawaabnay aan ku dhafarnay oon ku tacbaano oon dhaqaalo ku bixinay inaan meel soo istaago oo la dhahay zero ama hal qof haa doortay never happen, ma dhacayso. taas waaye 3 tigid oo hadda Kismaayaan jooga, Soomaaliyaan dhex jooga, aan dhahay never ma ka soo qayb galayaan dhahay. tiimkeygana waa ogaan 40 kun ma shubaynaan dhahay, dad masaakiina jiro lada ma arkano waxaas aan contribute kareen aan siino. maxaa luus garay? nothing. ilaahay ma ii qorin ani, ilaahay nooma qorin tiimkeena, ilaahay uma qorin Soomaaliya inay hor u marto, uma qorin. because waxaa ka jiro maanta Soomaaliya iyo dagaalada ka jiro yaa maanta is hortaagan. ceer iyo abgaal leh, ceer iyo abgaal waxba ma dhimo, abgaal waxba ma dhimo, madaxweynaha wax dhimo, madaxweynaha abgaal ma aha, hawiye ma aha, Soomaaliya u taagan yahay. waa inaan ma arkano, waa inaa abgaalna ayna dhiheen madaxweynaha wallahi bila waa difaacayna, waa waxayna no qof wax u dhimi kara ma jiro. madaxweynaha wuu difaacan yahay, Amazon aa ag joogto, Soomaaliya xataa ma ag joogto. waxaa rabaa baroonig in la yareeyo, la walaalaa tihiin, hiraabaa isku tihiin, wixii qaldamay hala saxo. madaxweynaha maa qalday, yes waa ka xumahay aniga qofkaas in saas loo doogto, isla markiiba saas loo doogto. weli asaga maxkamad maba geeninba, goorma ma arkano magaciisa ma xukumi karaa. maaha inaa ceer la jiro ama habargedir la jiro, no, laakiin it's too early, it's too early. maantana inuu madaxweynihii xanaaqo wallahi inaa laigala hadli karo, wallahi no, naxariisa lagaa rabaa. ummadaada iyo shacabkaaga way dhibtoodeen, inaa u naxariistaa lagaa rabaa, not inaa dictate garayso. wallahi lelamad waa lagula hadlaa, waa lagu caynaa, waa lagu dhibaateynaa. inaa noo samirto dul aa yeelata lagaa rabaa, maaha inaa hoos kuu dhigahay, dul inaa yeelata lagaa rabaa. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan kusoo gabagabeynaya. ilaahay ha jeclaado, wuu jeclaaday, annagana waa jecelnahay. ayha maalin asagoo meel soo maraa islaan oo maarkano magaciis juuni meel u yaalo, dadkia u saarin jiray dhalinyarada ama qofkii soo mar. markaas tira hebelow kaale, maba taqaana nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay, kaale geedaan ii saare. owl waa loo saarin jiray, asaga yaa saartay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, asaga yaa saartay. markaasuu yiri intuu kuu geeyaa, way yaabtay. markay dhigtay waxay tiri dhegeyso, waa ku dardaarma ay tiri, dardaarankayga dhegeyso. haye maxaan dardaarankaaga? koo waxaa soo baxay tiri oo nebi sheegana maxamed a dhahay, kaas iska ilaalay tiri, nin fiicanaa tahay adiga. markaasuu yiri nabi maxamed aniga waayo calayhi salaatu wasalaam. nabi maxamed kala sheegay oo xun oo qariban oo waxaysan oo la sheegay adiga miyaaba? haa. ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna sayidina wa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam. waa shahaadate. waxaa lagaa rabaa dul a lagaa rabaa, waxaa lagaa rabaa inaad dul u yeelatid dadkaaga, waxaa lagaa rabaa inaad dusha saaratid, culeyskooda inaad dareentid lagaama rabo. waa ka xunnahay 10 maalmood aa naloo qabtay, no waan dhahay ma ka qayb galin aan dhahay. 2 qofoodaa naga qayb gashay, actually 3. midna haloo hele, 2 kalena ziiray heleen. markaasay soo cunto toor, wallahi waxaa sheegay, oh excuse me, you not prepare even yourself, nobody know you. laakiin 45 casho at least minimum waxaan ka dalbanay 3 bilood iyo waxaan ka dalbanay ilaa 6 bilood. 45 casho minimum aan ka dalbanay, aan xoogaba saarna, aan la jaarji garayna dadkan, aan wadanka ka celina dadkan dhibaatada ku hayo oo already dadkii lasoo barweeya. isla markiian waxaa waaye aan gobol kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kasta aan tagi lahayn. different maarkano magaciis musharax jaaniskaas ma nala sii maya. maanta alxamdulilah waa qanacsannahay, ilaah nooma qorin, waqti fiican uu ilaah noo qori doonaa insha allah. waxaan rajaynaynaa taageeradiina iyo maarkano soo dhaweyntiina iyo alla ka baqiina wadankaas inaa u baqdaan darteed inaa igu taageertaan. Somali Academy Network-kan ku taageertaan. 3 sano iyo baraa hadda dhiman almost. tomorrow what? Still we can do it haddaan noolnahay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Soomaali ciyaar ma gasho. Somali is very serious, very conditional ku jirtaa, koomay ku jirtaa. sida koomada ugu soo celinaa kulligeena togetherkeena, sin kooma ugu soo celinaa. gabdhaheena waa dhibaato weyn, gabdhaheena cid kasta iska haysta. Kenya soo maray, cid kasta iska haysata gabdhaheena qurqurxanaa. Soomaali adduunka ugu qurxana, xataa carabta ka qurxanaa anaga. blue eyes, brown eyes,
timahooda jirkooda caafimaadkooda aawa gabdhaheena north america yurub aawa maxay ka yihiin maanta sanka iyo dabada iyo meel kastay soo durteen waxaasaa dhaqan ku soo celinaynaa haddaan annaga is aaminno allana aamino rasuulkii suubana calayhi salaatu wasalaamna sidii uu dul ugu lahaanaa dadkeena wallahi waa isku soo dhowaan karnaa allana waanu barakeynaya wabilaahi towfiiq waxaan u malaynayaa qof su-aal qaba inuusan jirin intaasaa laysoo weydiiyey intan waa idinkaga jawaabay intaan samayn lahayn meesha ma kusoo koobi kari laakiin insha allah waxaan rajaynayaa insha allah next timeka wixii su-aal waa isoo weydiin kartiin personale wixii ma arkanoo magaciisa muxuu ahaa oo talo waa isoo siin kartiin insha allah waanu nagu soo biiri kartiin hadduu ilaa raalkari dadka xisbiyaan samaysan xisbi anaga waa inowd inuu xisbi jira period xataa xisbi soo ku jiri doona laakiin annaga waxaan ballan qaadnay xisbi legitimate oo saddex habee oo annagana aan controleynin qof walbaba oo businesskaas ka tirsan ama dowladda ka tirsan marka banaanka la dhiga kadib meeshuu rabo gali karaa meel alla meeshuu rabo gali karaa including ninka ugu dambeeya anaa noqonayo saddex xisbi bisaan la asaasi doonaa meeqa xisbi qof walba attention uu iska rabaa bis koo wallahi waxaan arkay baqshad laalaaban oo tacbaane tutoore xisbiyaan le ana xisbigeyga inaan soo geshidaan rabaa ayu arab your man and he asked me ma arkano breakfastkiisa quraacda iga dhiib reerkii iyo waxaasuu dhahaa waryahaada dadka ka horwareeg you don't have to have inaa money haystid laakiin ummadda ka horwareeg tartiib relax qofkaa dhehaysa hata xisbigay soo galaan maanta lacag weydiisanaysaa xisho waddankeena heerkaasuu gaaray burbur saddexda xisbi wallahi xaggaasaa la dhigaa not me madaxweyne ku-xigeenkeyga wallahi ama prime ministerkeyga wallahi inuusan galaynin dowlad maarkan wixii dowladeena wasiiradeena wasiir ku-xigeenkeyna ma galayaan marka la kala galo ayaa midkaan rabo ani dooranaa soomaaliya ah midkaan rabo aan dooranaa saddex waxaa loo sameynaa xataa aniga ma aha saddex waxaa loo sameynaa qofood oo hogaamin karta iyo ku-xigeenadooda markaasaan join garaynaynaa let them vote for me and let them vote for anybody else like me it doesn't matter laakiin maxaa rabnaa oo naga go-an saddex xisbi oo soomaali ku tartanto oo maarkano guushaas ku karto wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaali waa idin jeclahay allana wuu idin jecel yahay rasuulka subana calayhi salaatu wasalaamna wuu idin duceey please ka faa'iidaysta let's get together harti maarkano magaciisa mayaan waxba isugu qaadan caloosheena burcad hamarseyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu